at least wala soo dhaweey waxa la wadankii lacagta imaatay wadankii farxadda imaatay sas isoo qora ayaan idinka waramaya iyo xaaladda muslimiintii caynka tahay iyo halka nala gaarsiiyay iyo halkaanu joognay Canada waxa Soomaalidu ay soo galanay soo qaxeen 1989 waa 1989 wixii ka dambeeyay markii la soo galay khayr waanu keenay shar waanu la kulanay khayrkii aanu keenay wuxuu ahaa diintii aan dadkii ku fidinay oo dumar faro dadkii Pakistaanti iyo Hindidii iyo Carabti iyo wixii markii hore diintoodu waa diin yar bay haydo lagana xishoodo lagana baqo oo qofkii doonayay xijaabto intaanu guri ka bixin warwar baa dili jiray oo gabadha Carabiyadii ama gabadha Pakistaaniyadii markay baxayso xijaabka halkaas saari jirtay ayaa waxa soo degay maraakiib dad soo dumar Soomaaliyeed oo jilbaabka jiidaya alxamdulillah dadkii Hindidii iyo Carabti nala degana markay arkeen dhiiriba gashay waxay raadnaba kuwan dadka madmadowga shalay soo galay hadday diintooda caanka u adkaysanayaan dan kala hayn innakii meeshan ku korray ku dhalanay maxaynu uga baqaynaa teeno ayaga qodhoodii xijaab iyo jilbaab iyo niqaab ay ku daateen ilaahu barakeeyo mushkiladan kala kulana laakiin mushkiladan kala kulana waxay ahayd waxaanu u nimi dawladii oo sugaysa dawladii marka waxay gacanta ku haysaa dad madmadooba loo yaqaano Jamaicans oo reer Jamaica ah dawladda khaatiyan bay ka taagantay ma shaqaystaan iskuul ma tagaan gangs bay wada samaysteen maalin dhan dhalinyaradu way hurdaa habeen dhan ayaga bay islaynaya ama waxbay dilayaan ama waxbay soo xadayaan qoysaskii ugu horeeyay Soomaalida wadanka yimi waxay dawladdu aragtay inay dadkan Soomaaliyeed dad nadiif ay yihiin dad nadiif aqal baa la soo galayaa dawladda dabadiis ka wasakhay tahay aqalkii baa la soo galayaa aqalkii gabadhii Soomaaliyeed fadhi carbeed yar meel allaala iyo meel ka kintay aan la garanin baa horta u yaala daahiyo gidaar ilaa iyo gidaar oo gidaaradii bay ku qarisay oo waaweyn si taro ma wax ka keentay wadankiina way suratay guriga marka la soo galo uunsi baa sankaaga gaaladii baa naga yaabtay gaaladii marka waxay yiraahdeen dadkan Jamaicanka ah ee drugska iyo khamriga iyo xashiishada iyo hablihii ay xumeeyaan iyo ayaga ismarinaya ma inta ka saartaan systemka dadkan Soomaaliyeed soo galisaan systemkii baa naka nala wada galiyay waana lagu wada guribaana lagu guray dadkii Soomaaliyeed marka way farxeen waxa dhacay marka daris kalena waa naloo dhigayo subhanallah marka gaalada aad fahamtid sida u fakirayaan ninkan caadi sidoo u fakiray waa ajiib wuxuu sameeyo ilaahay horta ma jirto wax walba wuu xisaabiya waxna waa uga jeedaa waxay arkeen marka inay dadka Soomaaliyeed sida digaaga u dhalaan ma sha Allah tabarakallah mid waliba 7 haysa 8 bay haysa halka way wada ordayaan waxay ogaadeen marka gabadhan Soomaaliyeed iyo ninkan Soomaaliyeed say u dhaqmaan diraasad wanaagsan bay nagu sameeyeen waxay ogaadeen ninka Soomaaliyeed inuu markuu wadankii uu joogay shaqadiisu ninka caadiga waa inuu subaxdii ka laha duhurkii buu soo noqonaya wuu qadaynaya wuu baxaya casarkii wuu maqan yahay laga yaabaa habeenkii inuu soo noqdo caruurtii iyo hurda mas'uuliyadda guriga waxa xambaarsan hooyada way u fakireenoo waxay ogaadeen ninkan Soomaaliyeed inuu asagu guriga atoora ka ciyaaro oo amarka uu bixiyo amarkii bay kala bedeleen gabadhii Soomaaliyeed oo wadankii markii ay joogtay ninkeeda masruufka weydiisan jirtay oo oran jirtay hooyaday baa baahan walaashay baa baahan aabahay baa baahan wax soo si ayaa inta
ninkii laga soo wareejiyey miisaaniyaddii ayadii loo dhiibay. waxa intaa loogu daray waxaa la yidhi caruurtan aad sida maasha allah meel walba xiimaya intana waxaad ku qaadanaysaa lacag, ayadina waa loo miisay. wadaadkii guriga atooraha ka ahaa ee soomaaliya ka talinayay ayaa wuxuunbuu is arkay asagoo labayka allahuma labayka oo gurina aan ka talin karaynin, shilina aan haysanin, gabadhina shaxaadaya. xaaskiibuu shaxaadayu leeyahy bal ii yara dhiibde, waxaan tegayaa, waxaan ka soo sheekaynayaa maqaaxidiya. way ugu talagaleenoo ninkiiyo gabadhii bay isku dhufteen. ninkiiyo gabadhii markay isku dhaceen, gabadhii waxay tidhi ninkii halkaa istaag. waa kanidan ka hadlaya, anugu kama hadlayo meel kale. halkaasay tidhi istaag. ninka soomaaliyeed ee kanada jooga ama wuxuu ka guriga uu soo galo, eg dumarka xarfaddu mar guriga soo galo, hadduu arko kiish madow oo kiishashkii xashiishka albaabka hor yaalla, waa ka shubay ha soo noqo, waxba albaabka garaacin weeye. waa maryahaagiibaa dabadda ku yaalla ee dhaqaaji. raggiiyo dumarkiiba horta waa la kala kaxeeyey. yaa soo hadhay markaa? waa carruurtii. waa naloo fakiray. anigu markan waddanka imi ilmo yar baan ahaa. sharciga waxaa laygu siiyey 15 miridh. 15 miridh maxkamad layma marin, waxba layma odhanin. maadiga haa oo keligaa baa socda, welcome baa laygu yidhi. islaantii markaa hooyadii waxaa lagu mashquuliyey arrimo. carruurtii odaygii halkan muu taagan yahay, gurigii ma imanayo. ragga Soomaaliyeed dabeecad bay leeyihiin, markay gabadha isku dhacaan gabadha iyo carruurtaba wuu israaciyaa, labadaba wuu furaa. halkaasuu carruurtii buu iska taagay, hayse buu waaye. halkan bay marka ayadi jilbaabka ayay baskii la fuushaan carruurtii. jilbaab dheer bay baraf la dhex martaa, malcaamadii bay geysaa, way ka soo kaxaysaa, iskuulkii bay qaar markay yaryar yihiin ay ku hor sugtaa. shaqadiiba ayadii bay ku dhacday. carruurtii markaa way waaweynaadeen. markay carruurtii waaweynaadeen, qolooyinkii laga saarayey guryaha ilaa maalin qura lagama saarine ayaa waxay ku sii wada tallaaleen carruurtii Soomaaliyeed wixii ay samayn jireen oo dhan. khamrigii, xashiishadii, dilistii, waxadistii, gangstersi. yaryarkii yaraay waddanka yimi af soomaaligii way ilaaween, ingiriis bay kula hadlayaan islaantii. yaryarkii markaa annaka waa nala eegaa, ida kolli halkanba waa leediina. macallimaddu iyo macallinka ka dhiga carruurta yaryar uu basaasaa. way waraysanaysaa, maxaad samaysaa weekendkan? oo maan bixin, oo waayo hooyada baa i dishay, oo maxay kugu dhufatay? dacaas. waa child abuse. ilmihii guriga loo celin maayo, iskuulka ayaa laga qaadaya. huf waa laga qaadayaaba. islaantii baa la odhanayaa kii soo ashkatooday qura laga qaadi maayo. waxaa la leeyahay wixii 18 jir ka yar guriga joogaba laga qaadaya, waayo mas-uul maba tihid. hooyada Soomaaliyeedna dee markuu ilmuhu isyaro waalwaalo maxaa lagu sameeyaa? dee waa la dhirbaaxa. dhirbaaxay kaga soo jaraysaa bob. taasa cankasa la isku fahmaa. yaryarkiibana laga ururi. way noo fakireen. yaryarkii markaa intay naga ururiyeen dad Soomaaliyeed ama muslimiina umay dhiibine, waxay u wada dhiibeen gaalo. waxay u wada dhiibeen dad weliba gaalo maahe kaniisadda ku xidhan, weliba qoladan United Church ayaa carruurtii Soomaaliyeed loo dhiibay. carruurtii Soomaaliyeed diin garan maayaan, wixii ay yaqaaneen qur'aankii garan maayaan. dee waabay ka masaxantay markay dhowr sanadood ka maqnaayeen. qolo la yidhaahdo Child Aid Society ayaa jirto oo hadduu ilmuhu uu mar galoba sida looga soo saaraa ay adag tahay. kuwiibaa ilmaha ugu yar baa la meermeerinaya 3-4 sannadood.
ilmihiyo aan Soomaalina ahayn Soomaaliya haddii la soo celiyo ayaa lagu soo celinaya. nidaam kale markaa naloo sameeyey, nidaamkii oo ah dadkan cadcade waddankanna keenay waxay ugu talagaleen carruurtan Soomaaliyeed ee waddanka la keenaya inay kuuli noqdaan. kuuligu markaa waa maxay? ilmuhu garan maayo, waxaa la odhanaya waxaad qaadanaysaa math baad qaadanaysaa, xisaab baad qaadanaysaa. xisaabtii laakiin xisaabta inankan cad la siinayo iyo inankan Soomaaliyeed way kala duwantay. midna waxa ku jirta P leerka P, midna D. maxay ku kala duwan yihiin? inankan Soomaaliyeed maadadan uu qaadanayo waa maadad loogu talagalay inaanu jaamacad ku gelin, oo markuu high schoolka ka soo baxo uu dhammeeyo uu isla jaamacad doono waxaa la odhanayaa hayay shahaadadan intaasoo course baad qaadatay, maadadaas ankaas wey, nambarkaasay leedahay, waxaa lagaga baahan 2 sannadood oo kale inaad college gashid sidaad u gaadhid darajad aad jaamacad u geli kartid. waa naloo fakiray mogta. ilmihii Soomaali 18 jir 17 jir weeye, wuxuu arkayaa wixii kale dadkii xaafadii wacanka odaygu hadduu shaqeeyo shaqo yaroo silcu iska haya, maalna la soo eriyayo, maalna ka lahayo, maalna caynka ama taxi yar buu fuushan yahay. marka ilmihii marka wuxuu samaynayaa, wuxuu odhanayaa maba doonaya iskuul anigu, haddaan xashiishad iibiyo ama wax soo dhaco intuu aabbahay ku sameeyo sanad bil baan ku samaynaya. carruurtii marka waxay u baydheen intooda badan, weliba inamadu waxay u beedhan marka inay xashiishadii iibiyaan, inay wax dilaan, inay wax dhacaan. jeelalka waxaan la yidhaahdo juveniles baa jira. juveniles waxa weeye ilmuhu intaanu 18 jir gaadhin wixii ka yar qaangaadh weeye. marka iyaga weeye Soomaalida boqolkiiba jeelalka 75 waa Soomaali. hadda waa waddankii oo dhanba 75 waa Soomaali. maxaa looga jeedaa marka? ilmihii Soomaali markuu ka soo baxo jeelka waxaa la gelinayaa inuu yahay criminal record, inuu leeyahay shaqo wanaagsan heli kari maayo. hadduu isaado isdabaro naftaada dib u soo noolaysiyo ishagaaji, meel uu gaari karaya ma jirto. noloshiisu marka waa ka kac. marka muxuu samaynayaa? dee waxbuu dilayaa, waxna wuu xadayaa, waxna wuu dhacayaa, shaqana qaban maayo. guryaha waxaa noo jiifo ilaahay igu ogyahay qaar hooyooyinkooda soo hadlayna, hooyo bay tiri Sheekh Saciidow inan yar islaamina marmar bad moodaa inaanay carruurta kaba weynaanin. waxay tiri hooyo inan yar guriga ii jooga ayaan doonaya inaad u timaadaad la hadashid. muxuu qabtaa baan ku waxba ma qabtay, gurigun buu hordaayo, maalin dhan uu hordaa, habeen dhan uu maqan yahay. haye cuntada yaa u kariya? hooyo dee anaa u kariya, anaa wax yar ku rida. maryaha yaa u maydha? dee anaa u maydha. yu kale maxaa shilin ma haysto oo baska lacagtaya siiya? dee aniga wixii lay siiyaan siiya. oo inanka waa imisa jir? ma 33 jir bay tahay. hooyo waa ilmo yar oo waa 33 jir. 33 jir weeye. ka waran hudheel ayuu inankani degan yahay. hudheel buu degan yahay. maryaha waa loo maydhaa, sariirta waa loo goglaa, guriga waa loo fiiqaa, cuntadiisu waa u sii diyaan, qadadiisa iyo quraacdiisa iyo cashadiisu miiskay taallaa. muxuu u shaqaysanayaa? waxba u shaqaysan maayo. sheekada ayaan waxaa noo dheeraatay markaa. waxaa cajiibka subxaan allah 2008 ayaan xaafad baan degay. xaafadda waxa weeye waa xaafad cusub. xaafaddii waxaad ugu tegaysaa dad wada cadcad oo dee waa aqalo waaweyn oo qurqurux badan oo baabuurta taalla, waa wada BMW Mercedes oo xaggayga qaali ah. waan soo degay, jaarkaygaan eegay, nin cad baan filayay, waaba nin Jamaicana. ka kalaan eegay waaba Rasta Jamaicana. ka kalaan eegay waa mid kaloo madow. waan yaabay, war dadkani dadkii annakana lagu bedelay miyaanay ahayn? may way yihiin. oo haddaa maxaa dhacay? waxaa dhacay markuu systemku eriyey ayagii ayay dabadda la soo dhigay. dabaddii ma la soo dhigay
nin wala markaa wuxuu isla adugu isdabbar jaamacaddii bay wada galeen waxay ka soo wada bixeen jaamacadihii dhalinyaradii Jamaicanka annagu ka khashaafanay ayaaba waxay wada noqdeen managers waxaanu gaarnay darajad gabadha Soomaaliyeed wallahi waan xasuusanahay marka dawladdu aqal ay siiso waxay oran jirtay Jamaican mid degan yahay areadan haddii la ha ma doonayo iga celiye meel kale geeyo imika gabadha Jamaicanka marka aqal la siin waxa Soomaaliyeed ilaahan degan yahay Soomaali haddii la ha iga celiye oran Soomaali mad la degaye halkay ku jireen ayaanu galay carruurtii Soomaaliyeed marka waxay noqdeen war intooda inamadu ma hablaha inamadu intooda badan waxay u baydeen caynka ayagii markay soo dhameeyeen waxyaabihii kala Jamaicankii ay wadanka ka saareen wadankii bay ka saareen gaangistirada wadanku waa annaka ma sha Allah tabarakallah kuwa wax soo geliya hubka iibiya waa annaka waa Soomaalidii marka ayagii baa isku dhacay Soomaalidii iminka waxaanu haynaa markii malaaimika 6 bilood ka hortu waxaanu maraynay 64 inamood oo Soomaaliyeed 64 inanoo Soomaali kala badilay Soomaalidii ayaa gamta isu joogsatay Soomaali buu dilaya waxay ka bilaabantay moogtiin waxay ka bilaabantay cajibeed tuulo yaro fog oo israadeen yaa la idinku arkin daydu ka meelo wax yaani dhacayo si xashiix abay way fogaadeen meel bay tageen inan Soomaaliyeed hablaheena subhanallah inan Soomaaliyeed oo rag Jamaican ay wataan Jamaican baa wata inantii Soomaaliyeed ayaa markii la cabay ayay inantii taabteen way maagmaagan way riixeen gruubkan inanta wata Soomaali inamana way ku jiraan habla Soomaaliyeed way ku jiraan waayo Jamaicanka iyo dadka maarta ajaanibka hablaha Soomaaliyeed qorin hablaha Soomaaliyeed waa number 1 hablaha Soomaaliyeed subhanallah bileen anka noqdeen ilaahi subhanahu wa ta'ala noo soo hadeeyay Jamaicanki inanka waxa ka taagan Soomaaliyeed oo gruub kale Soomaaliyeed la socday ayaa dhiig dhaqaaqay wuxuu arkay inanta Soomaaliyeed anka loo galayo kii Jamaicanka haye inanta riixriixay farafareynay ayuu soo feeray ninkii Jamaicanka muu hadale aan la kiciyay qoladiisa bay urursatay mid Soomaaliyeed oo ku jira ayuu soo diray kiina nacasnimadiisa baastoorad bula subxaarkaasuu ka dhuftay inankii Soomaaliyeed inankii inanta u kacakaasuu ka dhuftay wuu dhintay inan qoladii Soomaaliyeed ayay waanu argoynayeen intay soo carareen bay kii Soomaaliyeed habeenkii dambe intay heleen ayaa sagina dileen ninkii Jamaicanka ay inanta faraxumeeyay meeshii uu ka baxay waxay noqdeen laba gruub oo Soomaaliyeed oo ayagii ismarinaya subhanallah carruur Soomaaliyeed Toronto lagu laayay suuqa hadda waa suuqa shaaracaas oo kale ayaa labadii habeenimo ayaa lagu laayay markaas waliba Madiina lagala baxay oo kabiil lagala baxay 8 subaxnimo ayaa carruurtii yareed Soomaaliyeed iskuulka baagtooda siiyay ku socotay iskuulka ayaa arkay meydkii wadada yaalay 8 subaxnimo waayo dawladdu waxay arkeen dadkan Soomaaliyeed waa madow waa Soomaali waa ajnabi waa qaxoonti waa muslim dan kamale hadduu nin cad yahay ama gabadh cali ahaan lahayd qiyaamaha kici lahaa labadaba jidda waa la joogi lahaa meesha wallahi billahi 8 subaxnimo ay carruurtii yareed arkeen hebel baa ku dhintay yaa ku dhintay waalidka waxa loo soo sheegay 8 subaxnimo ka dambeeyay kaaga daranta ilaa subhanallah ilmaha Soomaaliyeed dhinta ee asagoo dambiila dhinta ee ama ku dhinta macsiyad ila meel murajallay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah laga yaaba inuu u dambi dhaafo oo xitaa hadda la soo cadibo inuu Ilaahay de rahmadiisa ka soo saaro cadaabta waxa inta nagaga daran habluna hawbataani dadkii la gaalaysiinayay waxa inta nagaga daran
dadkii la gaalaysiinayey ee hablihii baa laga dhaadhicinaya diintii islaamku way ku abuse garaysaa xaq kuma siiso ninkaaga 4 baa loo ogol yahay caynka inan yar oo Soomaaliyeedoo hooyadii la joogta oo hadana Ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa midna aaminsaneyn baa halka naga jooga ma aaminsana waan gurigii aabaheed iyo hooyadeed bay dhex taagantay waayo wax laga soo buuxiyay caynkaas adu gabar sida gabadha noqo is-xore waad qurux badantay waxaad noqon kartaa maal baad noqon kartaa siyaasaad noqon kartaa saasa lagu hablihii markaa subxaanallah waxaad arkaysaa markaad habeenkii magaalo dhex taagtid hablo Soomaaliyeed oo rag ajaaniba la socda oo haddii aad walaalo oo dee adiga dhiig ku dhaqaaqo waxaan jooji wax koonsa ama nara muslimiin maxad doonaysa muslimiin maxad doonaysa inta caruurteena yani subxaanallah ويرت مركن أركو إنما رس نوجي مي الشيخ خضر لله هذا خضر أحمد عبد الله رس سويلنا أيوه نوجي مي كندا مركز وحيد أنا كبولي سويرش كن نما فرفرة ونما صوت دويان أنا كواب عكس كيا عروت الصومال سيد لو دونيو يسيد لو صوت دوينيو يسيد أدمودد إنه إله شيء إبليس وررتي قومم لن oo leeyni caruurta Soomaaliya soo baabi'iyo wadiyaabas tafiya milq mushkilada jirta waxa weeye marka dadkii Soomaaliyeed way arkaan waxa meesha ka jira way arkaan oo waxa ka dhacaya way arkaan laakiin masaajidadii horta masaajid marka waxa loogu qatwa masaajidada anaka xaq iyaga laakiin waxa jira dad la yiraahdo Somali community samaystay oo dhowr iyo 7 ma noo qoran dhowr iyo 7 kaasi la yusminun wala yughnuna min ju' nin walba shandad ku sida xafiiskiisa ku sita dawladdu in yar kaga soo qaadanaya markuu in yar kaga soo qaato uu soo baxaya marka in yar la siiyo kharaja wala mi'ud halkaas ka baxo muuq halka mar muuqam la waa ma maqli jirteen dib dambaba caruurtii yaryareed marka diintii islaamkana si wanaagsan uma fahamsana oo wuxuu dhigtaa intooda badan horta ma sha Allah caruur badan baa lagu dadaalaan islaam iskuulka la geeyo laakiin waxay dhigtaan iskuulo ajaaniba kuwii kale ee galay public schoolska imika waxaan isku haysanaa Canada la isku haysto dawladii baa tiri war iskuulka markay timaado caruurta Soomaaliyeed waa number 1 saaqirinta marka nala wada xisaabiyay in la wada eegay caruurta Soomaaliyeed waxa la eegay Greega la eegay Hindida la eegay Chinese la eegay waxa la eegay Pakistanta Sri Lankinta la eegay Carabti baa la eegay Greega la eegay waxa community-ga ugu saaqidsan waa Soomaalida number 1 mana Portugiiska yana ka isku erina ayagana nidaam baa loo sameeyo waa dad cadcado jidib nidaam baa la geliyo waa la doonay dadka la doonay meel gaaraan Soomaaliga laakiin waxa la doonay inuu kuuli noqdo systemkii marka ayana lagu cuna qabatay Soomaalidina way ka dhex shaqaystaan ayagii baa kala khiyaameeya oo waxaan soo sameeyo oo qaar malaysan baad oranaysaa waxaan bay sameeysan qaar masaajidadiiba marka wax dhaqdhaqaaq leh ayaa loogu qaatay ma malaynaysan waxaanu joognay ilaa 1989 baanu joognay iskuul Soomaaliyeed ma lihin magaalada waxa joogana 200 oo kun oo Soomaaliyeed u noqonaya 200 oo kun oo Soomaaliyeed ay noqonayaan iskuul qolana ma lihin iskuul inama ka furo ilaaha ka baal mariyo oo dadaashay xalima la yiraahdo wanaagsan meel yarbay masjid Khalid bin Walid ba mala dhor maqsin laga siiyay intay ka soo carartay meel kale xamili weyday oo in yarba haysade iskuul walos la furto hindida furatay carabti ba furatay waxa furtay Gayaniski masaarida furatay iskuul walo la furto waalidka Soomaaliyeed ba halka ka buuxay carruurtoodii waxaanu garan weyn hadaan Soomaalinay is urursada oo meel samaysto horta Canada markan xagga sharka idin ka sheekeeyo xagga weeye khayr badan waanu leenay
oo dhalinyaro fara badan baa jiro oo masaajidada lagu dadaalo laakiin waxaad moodaa dhinacii xumaa inuu naga xoog batay markaad meelo fara badan ka eegtid oo xitaa annako ninka magaalada haysta mayorka waa ninka magaalada haysta ee Toronto haysta waxa la yiraahdaa Ford baa la magaciisa Robert Ford waxa la yiraahdaa Rob Ford caruurs laba inanoo Soomaaliyeed ninkan wuxuu cabaa xashishada annaga madaxweynaha xashishada cabaa moogta ma sha Allah tabaaraka Allah xashishadu cabaa laba inanoo Soomaaliyeed ayaa xashishada ka iibiya show xashishada ayuu ka iibiyaan xashishadii marka show mid odagiiba intuu shitay buu dee marqaama asagoo nuugaya ayuu midna ka duubtay video waa ninka magaalada haystay waa Soomaaliye wuu u tageen waxay la hadleen meediadii waxay ku yiraahdeen kaalay waxaanu idin daawadsiinaynaa madaxweynihii magaalada oo xashishad cabaya kamarada ma soo qaadan kartaan caruurteena waa xarfaan moogtay ma sha Allah way u yeereen way tusaan meediada ku tiri maxaad doonaysaan $200,000 hadana siisaan video waan idin siinaynaa bay yiraahdeen meediada soo baxday waxay soo qoreen Somali youth dhalinyaradii Soomaaliyeed waxay may oran laba qof oo ankaasa no dhalinyaradii Soomaaliyeed waxay hayaan video meerkeenu cabaya xashishad waxaanu doonaynaa community inay lacag bixiyaan way $200,000 bay idin weydiisteen community-ga bixiya markiiba account baa loo furay dadkii suuqa marayay ayaa ka 10 ku tuura ka 20 bixiya ka 10 bixiya 200 iyo charger baa labadii in loo ururiyay waa nin cad oo madaxweynaha booliskiiba talaala annaku booliska waxaanu ka weynay war xaafadahan Soomaalidan arag xaafadaha jira annaku bilna dheer baa jira oo Dixon la yiraahdo ina maqasheen mooyeen waa international caruba ka buuxda xunxune soo qabta midmid waan intu sanay ma dhaqaaqayaan markii ninkii la helay ninkii markuu ashkatooday ninkii cadda ayay intay galeen bildinadii islaamihii hagbadaha ku jiray oo dhan lacagtii ka soo ururiyeen $600,000 bay ku soo ururiyeen 2 saacadood sayidaahdeen balaag Soomaalida xashiishad bay ku hayaan bildinadano $600,000 kaasha ayaanu haynaa islaamihii waxay leeyahay hooyo waa hagbadii ninkan booliiskan wuxuu leeyahay been bay sheegaysaa waa lacagtii xashiishada yarkay u haysa yarkii hooyada u tay ayay u haysa lacagtiina la qaaday yarkiina intii la xidhay dhowr day la doonayay lagu malaaso tuhmada waa la sameeyay annakina xabana loo ma qaban waxaanu ka liftay marka inaan ilaahno war hadaynu Soomaalinahay aynu is urursano waxaanu sameeynay nidaam aanu nidi bal masaajidadu hays urursadaan oo dadkan Soomaalida lagu badbaadiyo oo caruurtooda lagu badbaadiyo nidaamkii marka uu shaqeyn waayo qolo walba waxay doonaysaa inay yiraahdaan de annaka wanaku kuma jiro annaka haynana imika annaka ku qoran waan naqan xalka Soomaaliyeed anna Soomaalida ma kala aqaano marka waanu ka baxnay waanu dhaqaaqnay waxaanu soo helay buildingkani xagga hore waa 3 dabaq xagga dambana waa dabaq weyn ilaahay baa weyn sidan idinku qiyaaso hadda qiyaasan xisaabsanayno masjidkani dhulku ku fadhiya waxa la waa 340 mitir square meter dhulkani building ko qura waa 23,000 oo mitir oo square yani waa haddii aad Soomaali oo dhan ku xareysid aad caruurtooda ku xareysid oo wax walba ugu xareysid wuu nagu filaanaya inta waxa u dheer saw aragteenba xaggan waxa ku yaala oo haday arkay lahaydeen meeshii kubadda ku ciyaarayeen kubadii lugta iyo tii gacanta iyo xagga dambo laga sameeyo balligii ama meeshii lagu dabaalanayay oo nisriha waliba hablaha Soomaalida muslimiinta way xanibayeen way meel ku dabaashan ma haysan xijaabka iyo jilbaabka halkana gaala ka buuxda iskama dhigi karaan meel baan u qodanay imika
waxay leedahay iskuul bay leedahay iskuulkii markaa waxaa laga soo bilaabaya ilmaha yar xadaanada markay dhashaan ilaa ay jaamacad gelayaan wuxuu noqonayaa iskuulka Soomaaliyeed qora ugu hag iskuul buu noqonayaa markaa islaamiya oo xisaabtii iyo biology iyo ingiriisiga iyo chemistry iyo geography iyo taariikhdii quraankii siiradii xadiidkii xifdigii laga samaynayo waxaanu rajaynaynaa iskuulkaasi inuu noqdo caruurta soo galo oo dhani markay high schoolka ka baxaan inay kulligood xufaad ay noqdaan insha Allah noo duceeyo in Ilaahay naga aqbalo way waxaan doonaynaa soo saaro caruur Soomaaliyeed oo diiniyana dhisan cilmigiina dhisan waxaana laga yiri xalata waan uga sheekeynaya halkay habli joogay xalata sidanu Ilaahay nagu siiyay horta waa mucjiza masaajidkan gabigiisaba wuxuu jiraa 6 bilood gabigiisaba organization kayagan la yiraahdo Sakina masaajidka Sakina Community Center gabigeedu waxay jirtaa 6 bilood iyo badh 6 bilood iyo badh baan ku karay inaanu ku meesha iibino kadan aynu hadlayno programada ka socda madaxaasa ku xanuunaya oo duruus xifd quraan caruurtii wax lagu barayo meeshii tutoringkii wax lagu barayo caruurta iskuulka markay ka yimaadaan homeworkii homeworkii lagala shaqeynaya wixii oo dhanba way leeyihiin kubadii lugta iyo tii gacanta iyo computer room ay ku ciyaaraan lagu mashquuliyo dhanna waan ugu sameyn waxaanu doonaa markaa yaryarkayga yar markay soo galaan masaajidka waxay soo galaan subaxdii habeenkii cishaaba laga kaxeeyaa sidaad uga soo saartid masaajidkana waa qiyaama waxaad arkaysaa hooyooyinka caruurtii albaabka jiidayo ay wada ooyaan ma tagayno ma baxayno waxaanu doonaynaa baanu helay way waxaan doonayaa ilmo yaro doonaya inuu masaajidka Ilaahay joogo oo suuqa waliba kuwii yaryaraa ma aha biyaha kuwa ina maqlaya wanaagsan maaha kuwii waaweynaa 17 jirkii 16 jirkii ma sha Allah inanka ugu horeeya waa 6 bilood inanka ugu horeeya wuxuu maraya suurat al-anfal yani quraanka buu ka soo bilaabay suurat al-anfal buu maraya kii ugu horeeyay waxaanu filaynaa dhowr bilood ka bacdi inuu khatimo quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala duu hawl yareeyo ka kala naxal buu maraya